iyo gobolka Banaadir shirkaas oo qayb ka ah dadaalada loogu jiro sidii dalka ay doorasho uga qabsoomi lahayd waxa uu ku qabsoomi doonaa magaalada Garowe ee caasimadda u ah dowlad goboleedka Puntland taariikhdu marka ay tahay 15ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo. Cabdirashiidow horey shirar badan ayaa loo qabtay shirarkaasna fashil bay ku soo dhamaadeen waa shirkii hadda ugu dambeeyay Dhuusmareeb fashil buu ku soo dhamaaday shirkan rajadiin intee la eg tahay aad filaysaan in wax ka soo rajo weyn baa laga qabaa runtii dalka in doorashooyin ka dhacaan madaxdu inay isu timaado la shiro oo laga tashadana aad bay muhiim u tahay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed waxay dadaalkan iyo isu yeedhida shirkan ay ku xoojinaysaa tallaabooyinka muhiimka ah ee hore loogu qaadi doono in dalka ay doorasho ka qabsoonto iyadoo laga duulayo shuruucda inoo taala gaar ahaan sharcigii 17 September 2020 madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir ay isla meel mariyeen oo ku heshiiyeen dabadeedna 26kii bishii September 2020 labada gole ee baarlamaanku ay meel mariyeen heshiiskaas oo inoo yaala waxa muhiim ah marka in madaxdu ay isu timaado oo aan laga quusan wada hadallada si ay suuragal u noqoto in heshiiskii 17 September dalka doorasho loogu dareero madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya sidaan la socno shirkii Dhuusmareeb uu ka soo baxay waa tan haddana uu Garowe u socdo oo shir lagu baaqay 15 bish in Garowe shir lagu qabto marka mudane cadaadis caalami miyaa jiro madaxweynaha jamhuuriyaddu markii la joogay magaalada Samareeb waxa uu lahaa shir muhiim ah oo kelmad rasmi inuu ka jeediyo yaa u qorshaysnayd golaha shacabka sida uu xilligaas sheegay wasiirka warfaafintuna shirka uu sii socon doonaa dowladda federaalka go'aankeedu wuxuu ahaa in shirku sii socdo mar walba laakiin muhiimadda ugu xoog weyn ee madaxweynuhu markaa u soo baxay ma ahayn shirku inuu fashilmay in mushkilad kale jirto waxay ahayd aasaaska in uu madaxweynuhu la hadlo golaha shacabka sidaas dhacday madaxweynuhu golaha shacabka la hadlay wuxuuna sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diyaar u tahay in wada hadalladu ay sii socdaan dalkana ay ka go'an tahay in doorasho la aado iyadoo laga duulayo shuruucda aan haysan waayahay ugu dambeyn shirkan la filayo 15 bisha inuu ka qabsoomo Garowe marka maxaa laga filan karaa ayaa is leedahay wallahi wax badan baa laga filan karaa magaalada Garowe caasimadda maamul goboleedka Puntland shirar hore noocan oo kala ku qabsoomay aadna waa magaalo runtii khibrad ugu leh isu soo dhaweynta iyo wada hadallada mararkii ugu dambeeyay waxaan xasuusanaa May 2019 in Garowe shir la isugu yimi baydhaba ka sii horeysay Samareeb baa ka sii horeysay xamar baa la isugu yimi heshiiska lagu gaaray muhiimadda ugu xooga badan ee maanta shirkan laga filayaa waxa weeye inuu noqdo kii ugu dambeeyay dadaalkii ugu dambeeyay ugu xooga badnaa madaxduna ay gacanta is qabsato waddanka doorasho u dareero dowladda federaalka ee Soomaaliya mar walba waxa ka go'an in dalku uu doorasho